waxaa maanta dalka Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm lagu aasay marxuum Ibraahim Cilmi Bulaale. marxuumka ayaa aaskiisa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo ay ku jireen bahda isboortiga Soomaaliyeed iyadoo duugista marxuumkana ay ka dhacday magaalada Stockholm. marxuum Ibraahim Cilmi Bulaale ayaa waxa uu ahay oday isboorti Soomaaliyeed ah. Ibraahim Cilmi Bulaale oo lagu naanaysay Ibraahim Xisbiyow ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1928 waxaana uu Ibraahim ka mid noqday ciidamada asaga oo waxbarasho ciidan ku soo qaatay dalalka Ruushka iyo Talyaaniga waxaana intii uu ciidamada ka mid ahaa uu sidoo kale gudoomiye ka ahaa naadigii Horseed asaga oo sidoo kalena gudoomiye ka soo noqday shirkad doomaha iyo caagaha Suubisa. waxaana Ibraahim sidoo kale lagu xasuustaa taariikhdiisa kooxdii badda oo ka ahaa gudoomiye ilaa iyo burburkii dowladii kacaanka Soomaaliyeed. Ibraahim ayaa sidoo kale kaalin weyn ka geystay shirar lagu heshiisiinayo dadka Soomaaliyeed isaga oo ka qayb galay shirarkii Djibouti iyo shirkii Kenya oo lagu soo dhisay xukuumadihii ku-meel gaarka ahaa. Ibraahim Xisbiyow ayaa waxa uu dhintay da'diisa ay noogu sheegeen eheladiisu inuu jiray in ka badan 80 sanadood. بيت فإنه الآن يسأل قف كان ولالكينو ميتك استغفارك إلهي إنه قدام بضعف أو ضلبة تثبيت إلهي إنه الصغو سؤالها اللي ويديني أيضا أو ضلبة محايا المرء اللي ويديني أو حلا ويديني أو مرء اللي السؤالية مركة تاسو حوي إنك سو مالين جمعنتها إنك سو دقدقي شرتوه بلا نسكو ضينو inaan wax yar u istighfaarno oo wax yar aan sugnaano markii ciid lagu rago aan is oran waajibku waa dhamaad ninkii saxaabiga ah Amr ibn Aas Abdullah ibn Aas wuxuu oran jiray war isuga hadii aan dhinto ilaa neef geel laga qalo laga qaybsado isuga oo intaas ii dambi dhaaf. wali waxaan ku guda jirnaa daawadayaal tacsidii allaha u naxariistay Ibraahim Xisbiyow oo ka mid ahay bahda isboortiga Soomaaliyeed kaasoo ku geeriyooday dalka kan Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm oo maanta lagu aasayo. haddaba halkan waxay la taagan qaar ka mid ah bulshadii sida aadka u garanaysay Ibraahim Xisbiyow allaha u naxariistay waxa ka mid ah bahda isboortiga Soomaaliyeed oo dhamaantood u dhanmaantay halkan in ugu aasaan geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Ibraahim Xisbiyow. haddaba bahda isboortiga ayaan la dhex qaadayaa mikrofoonka anigoo dareenkooda iyo shucuurtooda wax ka weydiin doona siday u garan jireen Ibraahim Xisbiyow. waxaa ka mid ah Bashiir Janyo oo aad wada garanaysaan ama bahda isboortiga ay garanayso. Bashiir ku soo dhawaaw TV-ga Universal waxaad warbixin qaas ah iga siisaa aqoontii aad u lahayd Ibraahim Xisbiyow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waa maalin tiiraanya leh oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba ay mataqaanaa tiiraanyadaasina la qaybsanayso meel kasta ay joogaan. kollayba waxa waaye waa waalidkeen waa laga dhintay wuxuu ahaa jiray nin isboortiga wuxuu ahaa nin ka soo shaqeeyay isboortiga iyo dalka Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ibraahim Cilmi Bulaale wuxuu ahaa hay'ad isboortiga Soomaaliyeed wuxuu ka soo qabtay shaqooyin badan iyo ka soo qabtay aniga aqoon aad u durugsan ayaan u leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga waxaa la yiraahdaa Cabdi Maxamed magac dheer Guure oo waxaan ahaa jiray ciyaartooydii basketka Soomaaliya inta banaane. marka Ibraahim Xisbiyow taariikhdiisa intaan ka hayo aniga wadanka muddo hore ka soo baxay wuxuu ahaa nin door weyn ka soo ciyaaray ciyaaraha Soomaaliya. halka kani ay u jeedaan waa halka lagu aasay allaha u naxariistay Ibraahim Cilmi Bulaale Ibraahim Xisbiyow oo ka mid ahay bahda isboortiga Soomaaliyeed oo in muddo uu ku soo jiray. marxuumkani ayaa isagu waxa uu in badan ka soo shaqeeyay ama soo qabtay waxyaabo fara badan laakiin wixii ugu dambeeyay oo hoolihii uu gacanta ku hayay ka mid ahay inuu naadiyo fara badan oo dalka Soomaaliya laga laa sida naadigii Horseed iyo naadigii badda oo gudoomiyaal ka soo noqdo ugu dambeyntiina naadigii badda uu gudoomiye u ahay oo aakhirkii uu ka soo hajiro dalka dagaaladii kadib. waxaan Ibraahim iminka lagu aasay qabuuraha u jeedaan daawadayaal. wariye Maxamed Yaasiin Xaaji Cagmadhige TV-ga Universal magaalada Stockholm dalka Sweden.